saacadu markay tahay 5 saac markay dhaafto ama 12 habeen markay dhaafto habeenkii horta markuu gabalkaasi dhaco oo qofku nasto oo jirkiisu kala dago oo seexdo dheecaamu jirku soo daaya dheecaamadaasi jirku waa u baahan yahay xilligaas kuwii maanta shaqeynaya faraha badnaa qaar badan oo kamid ah way seexanayaanoo bimaana way yara xasilayaan kuwa active oo aad u shaqeynaya soo baxaya maadaama adigu aad shaqadaadii active-nimada marka badnayn oo aad seexanayso 6 saac hadii la gaaro dheecaamu jirku soo daaya maskaxda wax weyn u tara xagga xusuusta iyo xagga caafimaadka iyo wareega dhiiga iyo dhan walba wax u tara shaqada dhiigu wareegayo kaliyaha shaqeyntooda beerka wax weyn u taraya baa uu jirku soo daaya maskaxdu marka siinaya maskaxda qaybinaysa waxa soo dhan marka waana xilliga hurdada ugu macaanta 6 saac marka la gaaro ilaa 9 saac ama ilaa 9 saac iyo bad wala 12 ilaa iyo 3 meelahaas oo kale waa xilliga hurdada ugu macaanta xilligaas oo kale jirka marka qaadanaya dheecaamada haddaan markuu qofku seexanin dheecaamadaasi ma soo baxayaan waxa waa soo jeedaade waa ordaysaa ama waad qayilaysaa ama waad sheekeynaysaa wax waad daawanaysaa in lagu siiyo wixii adama diyaar u hayn Soomaa in degdeg baa kugu dhacay xanuuna kugu dhacay marka waa in dhabeelaysaa finish baad noqonaysaa qofkii wax badan baa baaba'aya oo de waxa weeyaan jirkiisa dhan baa xumaanaya marka gaar ahaan dhalinyarada dadku waaweyn waa seexday waray dhalinyaro haddaad rabtaan adduunka inaad si fiican u ceeshtaan war habeenkii seexda oo habeenkii dhalinyaradaati hurdo badan baa idinku u baahantiin wili qofku 8 saacadood inuu seexdo u baahan yahay war habeenkii hadii 4 saac ba la gaaro ama 10 iska seexda haddaan wax weyn aad ku soo jeedaan jirin iska seexda caafimaad baad ka helaysaan ibn qayyim wuxuu oran jiray al-amalu bil ikhlas wal iqtida'in kal musafiri yahmilu jirabahu turaban yuthqiluhu wa la yanfa'u amal an ilahi dartina allah samay nabigana lagaga dayin alayhi salaam wuxuu la mid yahay qof yiri safar baan galaya oo shandadiisi iyo baagiisi intuu qaatay ciid iyo quruurux ka buuxiyay markuu meeshii uu ku socday tagay oo furayna maxaa uga soo baxaya board baa uga soo baxaya Soomaa marka amalka adduunka aad sameynayso haba yaraade iska ilaali inaad bani aadam wax kaga raadiso waxba kuguma biirin karo bani aadam miskiin kuma dili karo kuma nooleyn karo janno kuma gelin karo cadaab kuma gelin karo maxaa iska tusaysaaba ilaahay ma istusti subhanahu wa ta'ala isaga wax walba gacanta ku hay ma istusti isaga wax walba ku siinayay maxaa miskiinka bani aadamka kula midka iska tusaysa ilaahay istus subhanahu wa ta'ala marka ikhlaasku waxa la al-ikhlaas haqiiqatu diin diinta haqiiqadeedu waa daacadnimada ilaahay diintina daacad ka sheegto al-ikhlaasu miftaahu da'wati ar-rusul rususha da'wadoodi qulubta dadka ay ku fureen ikhlaas buu ahaa al-ikhlaasu sirrun bayna al-'abdi wa rabbi ikhlaasku waa sir qofka iyo ilaahay u dhaxaysa hadaanu darsi baan akhrinaya inaan idinka darsigan akhrinaya iskiin tusayo iyo in ay dabiga tahay maxaa ka ogtiin idinka ma ogaan kartid Soomaa wax qalbiga ku jira waa sir marka qofka rabbigi isaga u dhaxaysa subhanahu wa ta'ala waxaad sameynayso ha yaraado ilaahay darti u samee ma jeceshahay barashada qur'aanka kariimka iyo culuumtiisa hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada haddaba dugsiga casriga ah ee Maka Islamic Online waxaad ka baran kartaa qur'aanka kariimka higaada luqadda carabiga iyo culuumta shariicada isqoristu ay socotaa fadlan hore u gaadh wixii faahfaahina nagala soo xiriir +252 63477 956